Asalaamu calaykum. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa calaamadaha ay hooyada isku arkayso markii ay wado uur mataano ah. Inta badan waxaa jirto calaamado ay ka midaysan yihiin hooyada markii ay wado uur mataano ah. Marka uu uurka yahay hal cunug iyo marka uu mataan yahay waxaa adag oo calaamado badan ay hooyada isku arkaysaa markii ay mataanaha wado. Calaamada koowaad ee aan soo qaadanayno waxay tahay in hooyada ay isku aragto miisaankeeda oo u kordhayo si zaa'id ah. Hooyada markii ay mataano wado miisaankeeda zaa'id ayuu u koraa markii loo fiiriyo halkii cunug. Xilliga mataanaha ay hooyada wado miisaan zaa'id ayay isku arkaysaa. Weliba wuxuu bilaabanayaa uurka bilaaw marka uu yahay ayay dareemaysaa in miisaan zaa'id uu ku darsoomayo. Calaamada labaad ee aan soo qaadanayo waxay tahay hooyada waxay dareemaysaa daal zaa'id ah. Uurka mataanaha hooyooyinka markay wadaan waxay dareemaan daal ziyaada ah oo ka badan halka cunug. Calaamada saddexaad ee aan soo qaadanayo waxay tahay hooyada waxay dareemaysaa in caloosha ay zaa'id u weyn tahay. Markii hooyada ay mataano wado maadaama laba cunug oo midba miisaankiisa uu wato uu ku koraayo minka dhexdiisa waxay dareemaysaa in caloosha ay zaa'id u weyn tahay. Weliba waxay dareemaysaa bilaha hore ee uurka marka lagu jiro inay zaa'id u weyn tahay ayay dareemaysaa. Calaamada kale ee aan soo qaadanayo waxay tahay hooyada inay dareento hurdo yari ama in hurdaba aysan lahayn oo ay sabab u tahay daalka ay dareemayso. Markii hooyada mataano wado inta badan waxaa ku yaraado hurdada. Haddii hooyada ay hurdo yari dareento waxaa loo baahan yahay in ay nasiino badan ay sameyso sidoo kale fitamiinana ay qaadato ayna ku dadaasho nasiinada waayo waa calaamad ay leedahay uurka mataanaha ah. Sidoo kale haddii stress iyo walwal uu jirana ay iska yareyso ama waxyaabo ay ka walaacsan tahay haddii ay jiraan in ay isku daydo hooyada maskax ahaan in ay u nasato si ay u hesho hurdo ku filan. Calaamada kale ee aan soo qaadanayo waxay tahay hooyada xilli hore ayay dareemaysaa dhaqaaqa uurjiifkeeda. Dhaqaaqa uurjiifka inta badan hooyooyinku waxay dareemaan bishii afaraad iyo wixii ka dambeeyo laakiin hooyada waxay dareemaysaa dhaqaaq xilli hore ah. Calaamada kale ee aan soo qaadanayo waa in hooyada ay dareento baahi zaa'id ah maadaama uurjiifkeeda uu laba yahay ayna la qaybsanayaan wax walba. Hooyada waxay dareemaysaa baahi ka badan xadka caadiga ah. Waxaa hooyada looga baahan yahay maadaama ay baahi ziyaada dareemayso in ay cuntooyin nafaqo leh oo caafimaad leh sidoo kalena isku dheelitiran si labadeeda uurjiif ama mataanaha ay wado ay u helaan nafaqo ku filan. Calaamada kale ee hooyada isku arki karto waxay tahay markay uur mataano wado in haddii ay baarto uur ama HCG hormoonka loo yaqaano uu zaa'id yahay ayay arkaysaa. Calaamada kale ee hooyooyinka qaar isku arki karaan waxaa ka mid ah oohin bilaa sabab ah. Hooyadu way oonaysaa haddii la baarana ma jirto wax sabab ah oo sax ah oo la ogaan karo oo hooyadan ay dareemayso. Sidoo kale hooyada markii ay mataano wado waxay kaloo isku arki kartaa calool majiir in ay caloosha ka dareento xanuun ayay isku arki kartaa. Waxaana u sabab ah weynaanta zaa'idka ah ee uu weynaanayo minka ama caloosha ay zaa'id u weynaanayso maadaama ay mataano wado oo normalka caadiga ah miisaankooda uu ka badan yahay. Calaamada kale ee hooyada markii ay mataano wado ay isku arki karto waxaa ka mid ah in walaaca ama waxa loo yaqaano morning sickness uu zaa'id yahay halka cunug markii ay tahay wuu ka badan yahay markii hooyada mataano wado. Wax walba waxay u dareemaysaa si laba jibaar ah. Lalabada, mataga, everything waa wax zaa'id ah oo ka badan sidii normalka ahayd. Waxaana u sabab ah mataanaha. Sidoo kale haddii la fiiriyo ama la cabiro wadne garaaca uurjiifka waxaa la arkayaa laban qayb in ay wadne garaac ay ka sameynayaan oo midba goonidiisa uu yahay. Uurjiif walba waxa uu leeyahay wadne garaac u gooni ah ama mataanaha markii ay ku jiraan minka mid walba waxa uu sameynayaa wadne garaac u gooni ah.
waxaana si sax ah lagu ogaan karaa inta badan kombiyuutarka. Ultrasound sidoo kale waxay hooyooyinka qaar ay isku arkaan in neefta ay ku yar tahay ama neefta in ay ku dhagayso oo kale ay dareemayaan, taas ay u sabab tahay caloosha oo ka weyn sidii caadiga ahayd ama halka cunug markii uu ku jiray. Hooyooyinka inta badan waxay dareemayaan marka ay mataano wadaan in xoogaa neefta ay ku dhagayso. Waxaa kaloo la mid ah in hooyada ay dareento neeftuur ziyaada ah oo ka badan markii halka cunug ay waday. Mataanaha markii hooyada ay wado waxay dareemaysaa neeftuur ziyaada ah. Calaamadahan aan horay u soo sheegay waa calaamadaha ugu badan ee hooyooyinka marka ay mataano wadaan ay isku arkaan. Haddii aad dareento xaaladan, waxaad ogaataa in ay tahay wax normal ah oo dabiici ah. Mar walba waxaa ku dadaashaa in aad dhakhtar ku xirnaato oo aad dhakhtar la tashato. Xaalad walba oo aad dareemayso in aad dhakhtarkaaga la socodsiiso si uu kuu siiyo talooyin ku anfacaya. Sidoo kale waxaad ku dadaashaa nasiinada, waayo markii uurjiifka ay mataano yihiin way ka miisaan culus yihiin halka cunug. Mar walba waxaad ku dadaashaa nasiinada. 3 bil ee ugu horeyso waxaa loo yaqaano walaca wuxuu noqonayaa zaa'id oo waa uu ka xanuun badan yahay ama waa uu ka daran yahay halka cunug markii ay tahay. Mar walba waxaa isku daydaa in aad cuntid cunto nafaqo leh oo kuu fudud adiga, waxtarna kuu leh. Ku xisaabtan oo ogaaw in wax walba oo aad qaadanaysid ay kula qaybsanayaan 2 naf oo kale. Mar walba ka fakar waxa aad qaadanayso. Ha noqdaan wax naftaadana wax soo gelinayo, uurjiifkaagana uu wax fiican ka faa'iidayo. Isticmaal kiniiniga folic acid iyo vitamin D, fitamiinka qoraxda. Haddii waddan qorax leh aad joogtid, ayada ayaa natural ah oo kuu fiican. Haddii kalena isticmaal fitamiinka qoraxda laga helo. Ugu dambeyn, waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena. Haddii aad horey noola joogtana waan kaaga mahadcelinayaa.